soo dhawaada saaxiibayaal wiilkii films sheekadeennu maanta waxay ku bilaabanaysaa dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii Hitler laga adkaaday Jarmalka waxaa loo kala qaybiyay laba qaybood oo kala ah bari iyo galbeed waxaana dhexdooda laga dhisay derbi weyn kadib waxaan arkaynaa nin lagu magacaabo Napoleon Solo oo la kulmay gabadh lagu magacaabo Gabi oo ka shaqeysan makaani gudaha bariga Jarmalka Gabi ayaa weydiisay maxaad iga rabtaa Solo wuxuu ugu jawaabay waxaan raadinayaa aabaha Udo Teller kaas oo ahaa saynisyahan Hitler oo si khasab ah u shaqeysan jiray xilligii dagaalka Gabi ayaa tiri 18 sano u dambeeyay lama kulmin aabahay hadii aad aragto anigana ii soo sheeg markaas Solo wuxuu u sheegay in dagaalka kadib aabaheed uu Mareykanka u shaqeynayay nolol fiican oo ku noolaa halkaas laakiin muddo yar ka hor ayuu si lama filaan u lumay markii ugu dambeysana waxaa lagu arkay Roma Solo wuxuu kaloo u sheegay in adeerkeed Ruby uu arintan ku lug leeyahay sidaa darteed wuxuu hadda doonayaa inuu Gabi caawinaad ka helo si uu aabaheed u gaadho kadib Solo ayaa farta ku fiiqay daaqada oo yiri banaanka eeg jaajus ruush ayayna eegaya dab ahaantii ninkan wuxuu Solo daba socday tan iyo markii uu dalka soo galay Solo wuxuu Gabi ku yiri laba ikhtiyaar ayaa ku haray inaad hadda ila baxsatid oo dalka igala baxdid ama in hadhow ay ruushku ku qabtaan oo isku dayaan inay ka soo saaraan sababta uu jaajus Mareykanka kula kulmay Gabi markii ay cabaar ka fikirtay waxay go'aansatay inay baxdo inta ay gacanta ruushka ku dhiman lahayd gaarigii ayay soo saartay halka Solo uu dhabarka dambe ku dhuumanayay wax yar kadib markii ay istaageen nalka taraafiga jaajuskii ruushka ayaa soo gaaray wuxuuna Gabi ku eegay in la shaki ka buuxo isla markii uu Solo arkay in jaajuska ruushka uu hal gacan steerinka ku hayo wuxuu garowsaday inuu gacanta kale qori ku haysto wuxuuna Gabi ku yiri isla markii aad maqasho dhawaqa xabada gaariga dhaqaaji Solo si degdeg ah ayuu soo kacay laba xabadoodna wuxuu ku riday jaajuskii ruushka laakiin jaajusku si degdeg ah ayuu uga badbaaday Gabina gaariga ay xawaare aad u sareeyay ku kaxaysay laakiin jaajuskii ruushku wuxuu ahaa mid aad u xirfad badan wuuna soo daba galay laakiin markii dambe iyagoo ka faa'iideysanaya goob dhisme ka socdo Gabi waxay ku guuleysatay inay ilbirqsiye ka dhuumato dab ahaantii Gabi waxay gashay wada kale gaariga ayayna meel baarkina dhigatay halka jaajuskii ruushku uu dhaafay Solo uu ogaa inuu soo laaban doono sidaa darteed inta aanu gaariga ka digin ayuu Gabi u sharaxay qorshaha oo dhan jaajuskii ruushka oo qori haysta ayaa gaarigiisa gadaal u soo waday Gabi waxay si aayar ugu dhuumatay laamiga laakiinse jaajuskii ayaa harkeeda arkay mar labaadna uu soo eryaday isla markaas Solo ayaa gadaal kaga yimid oo darawalkii ku riday laba xabadood taasoo keentay in gaarigu kontaroolka ka baxo oo uu wax ku dhufto Solo wuxuu mooday inuu jaajuskii dilay Gabi ayaana gaariga markiiba soo leexisay oo Solo soo qaaday laakiinse jaajuskii ruushka uu badbaaday isagoo kursiga hoos u dhigay maadaama gaarigii sii burburay hadda waxay noqotay inuu lug ku eriyado isagoo awoodiisa oo dhan isticmaalaya ayuu isku dayay inuu gaariga xoog ku joojiyo Gabi waxay Solo ku tiri xabad ku dhufan ninkan laakiin Solo ayaa yiri jacayl uma hayo inaan dilo waxaana rabaa inaan arko waxa uu ninkan samayn karo jaajuskii ruushku wuxuu xoog ku gooyay qaybtii dambe ee gaariga laakiin maadaama ay gaadhi saarnaayeen way ka tageen kadib Solo wuxuu Gabi ku yiri luqas yar ee cidhiidhiga gaariga geli Gabi waxay tiri kan aad buu cidhiidhi u yahay laakiin Gabi waxay maqashay hadalkii Solo gaarigiina wuxuu ku xirmay labada derbi dhexdooda Solo ayaa yiri maxaad sidaas ugu eegaysaa waxay nimid meeshii saxda ahayd hadda daaqada gaariga ayay toos uga galeen daaqad guri waxayna u carreen dhanka saqafka sare dhanka kale jaajuskii ruushka ma ahayn mid nasanaya si joogta ah ayuuna u soo daba socday isla waqtigaas derbiga dhankiisa kale waxaa yimid gaari xamuula markii Solo uu calaamad siiyeyna waxaa loo soo tooray xadhig kaasoo ay kaga tallaabeen derbiga dushiisa oo ay dhanka kale ugu gudbeen laakiin markii jaajuskii ruushka uu xadhigga soo fuulay Solo ayaa amray in gaariga xamuulka gadaal loo celiyo taasoo keentay in xadhiggu dabco jaajuskiina uu ku xayrmo labada derbi dhexdooda kadib sheekadu wax yar ay dib u noqotay waxayna ogaanaa in jaajuskii ruushka magaciisa la yiraahdo Lilia madaxiisa Olechna uu uga warbixinayay Solo waa jaajuska ugu khatarsan Mareykanka ruushkuna marar badan ayay isku dayeen inay qabtaan laakiin markasta uu ka baxsadaa subaxdii xigtay Solo wuxuu musqusha dadweynaha kula kulmay madaxiisa Sandrias oo u sheegay hawlgal cusub si lama filaana Eli ayaa gadaal kaga yimid oo Solo ka nixiyay isla markiibana dagaal ayaa dhex maray laakiin Sandrias arrinkan lama yaabin hadda Solo wuxuu ku sigtay inuu miir beelo kadib markii la ciijiyay markaas ayaa Olech yimid oo Eli joojiyay wax yar kadib afartooduba waxay ku kulmeen makhaayad Sandrias ayaa shaaca ka qaaday in Gabi adeerkeed Ruby uu la shaqeeyo koox naasiyiina waxaana laga shakisan yahay in aabaha Gabi uu sameynayo hubka nuclear-ka shirkadda uu shaqeeyo xaale Alexander kaasoo ah nin taajir oo ciyaaryahana laakiin xaaskiisa Victoria ayaa ah mid aad u caqli badan dab ahaantii iyada ayaa ciyaarta oo dhan wada Mareykanka iyo Ruushka midkoodna ma doonayo in hubka nuclear-ka uu gacanta u galo kooxdan sidaa darteed jaashusinta labada dal waa inay si wada jir uga shaqeeyaan hawlgalkan waxay isticmaalayaan Gabi si ay adeerkeed ugu dhex dhuuntaan shirkadda kadibna aabaha Gabi ayay soo helayaan oo si degdeg ah uga soo saarayaan kadib Solo iyo Eli halkaas ayaa lagu kala yeelay si ay uga fakaraan sida ay u wada shaqeynayaan laakiin labadooduba midna kan kale ma jeclayn labadooduba xogta kan kale ayay soo saarteen wax yar kadib hadallo kulul ayaa dhex maray Eli ayaana isagoo xanaaqsan meesha ka tegay
maalintii xigtay Solo wuxuu Gaabi geeyay dukaanka dharka markii ay Iliya halkaas ku aragtayna Gaabi aad bay ula yaabtay waxaa la ogaaday in Iliya uu iska dhigi doono injineer dhisme oo Ruusha Gaabina ay tahay inay tisho doorka gacalisadiisa arrintan Gaabi haba yaraatee ma jeclaysan Solo wuxuu u sharaxay intani ay muhiim u tahay hawlgalka waana inay Roomo ku barayso Iliya adeerkii halka Solo uu iska dhigayo ganacsada alaabta qadiimiga iibiya si uu iskaga dayo inuu Victoria u dhawaado hadda Gaabi wax ikhtiyaar oo aan qorshahan ka ahayn ma haysan waqti yar kadib saddexdooduba waxay gaadheen Roma hawlgalkooda awgiis markii Solo uu hotelka iska diiwaan gelinayay wuxuu arkay laba nin oo Gaabi iyo Iliya daba socda markii ay dadku kala yaraadeen Solo wuxuu Iliya u sheegay inuu Ruudi hadda tijaabin doono inuu jaajus yahay iyo in kale markaa wax yar iska caabi hana iska dhigin in aad u xoog badan hana dilin iyaga wax yar kadib labadii tug ayaa Gaabi iyo Iliya meel cidla ah ku helay si ay u dhacaan Iliya markii hore uu iska dulqaadanayay garaaca laakiin markii ay qaateen saacadii aabihiis uu xanaaqay mid walbaana dharbaaxa ayuu ku riday markii hotelka lagu soo noqday Gaabi waxay la hadashay adeerkeed Ruby wuxuuna ku casuumay xafladda sanad guuradii kontonaad ee shirkadda qolka dhexdiisa Gaabi iyo Iliya waxaa dhex maray kaftan iyo isfahan yar oo macaan marbay u ekaatay inay isdhunkan rabaan laakiin Gaabi waxay aad uga cabatay khamriga xaaladaas ayayna ku seexatay dhanka kale Solo wuxuu shukaansanayay gabadha hotelka receptionka u fadhida si uu xog uga helo kadib wuxuu saacadiisa ka helay qalabka codka duuba markii uu wax yar baadhayna qolka wuxuu ka helay qalab badan oo wax lagu dhageysto iyo transmitters intaas kadib Iliya ayuu la kulmay oo weydiiyay maxaad qolkayga waxaan oo dhan u gelisay laakiin Iliya ayaa isla soo saaray dhammaan qalabkii uu soo la geliyay qolkiisa kadibna intaan xafladda la aadin Iliya wuxuu Gaabi u geliyay Faranti xafladda Gaabi waxay Iliya bartay adeerkeed Ruby wuxuu weydiiyay sida ay isku barteen hadalka dhexdiisa Ruby wuxuu yidhi hadallo Iliya ka xanaaji markaas ayuuna isagoo xanaaqsan meesha ka tegay Gaabi oo wali hawlgalka diiradda saaraysa ayaa aabaheed soo hadal qaaday waxayna tiri waxaan rabaa inaan dhawaan guursado sidaa darteed waxaan u baahanahay in aabahay joogo laakiin Ruby wuxuu yidhi anigu ma garanayo meeluu joogo gabadhaydii dhanka kale Solo waxaan arkaynaa isagoo nin ku dhacaya si uu uga xado kaarka casuumaadda kadib jikada ayuu ka soo galay xafladda waxaana arkay ilaaliye markii Solo dhex wareegayay ilaaliyihii ayaa joojiyay oo yidhi tus kaarkaaga casuumaadda Solo wuxuu iska dhigay nin soo ilaaway wuxuuna yidhi kaalay bannaanka aan ku tusay isla markaas ilaaladii isaga waxaa dhex maray gacanka hadal yar Solo wuxuu si ula kaca u aqbalay hal feedh oo xooggan kadibna wuxuu tusay kaarkiisii casuumaadda arrintan Victoria aad bay uga xumaatay wayna u timid iyadoo raaligelin ka bixinaysa intii ay wada hadlayeen Solo wuxuu isku riday Victoria dusheeda markii ay kali noqdeen Victoria waxay ogaatay inuu Solo ka xaday silsiladeeda iyo saacadeeda Solo wuxuu u sheegay waxaad haysataa waxyaabo badan oo naadira laakiin waxaa jira waxyaabo aadan heli karin aniga shaqadeeduna waa inaan waxyaabahaas gaarsiiyo macaamiishayda dhanka kale Iliya musqusha ayuu galay waxaana halkaas taagnaa saddex nin wuxuuna yidhi walaalayaa laga yara durka aan gacmaha iska dhaqi laakiin way diideen iyagoo ku yidhi meel kale ka dhaqo ugu dambeyntii Iliya xanaaqi baa ka batay qaabkiisa dagaal ee cajiibka ayuuna saddexdoodiba ku garaacay dhanka kale Solo wuxuu ku guulaystay inuu Victoria la ballamo xafladda oo dhan Iliya wuxuu qaadiyay sawirro badan isagoo isticmaalaya filim gaar oo shaaca dareema taasoo cadaysay in Victoria iyo Rudy ay samaysanayaan hub nukliyeera Iliya wuxuu qiyaasay in shirkadu ay horey u urursatay macdanta uranianta laakiin Solo wuxuu yidhi waxa jira oo dhan berri baan ka hadli doonaa haddana waan siixanayaa laakiin wax yar kadib bannaanka warshadda shirkadda waxaan arkaynaa Solo isku dayay inuu si dhuumashaha ku galo markii uu siliga jarayay wuxuu arkay Iliya oo ag taagan wuxuuna weydiiyey warso adigii siixanayay maaha si lama filaana leerka ayaa baktiyey labadooduna iskumaysan nixin markii ay sarkeen Iliya wuxuu yidhi intaan generatorku shaqayn waxaan haysanaa 10 daqiiqo Solo wuxuu yidhi haddii aan degdegayna yuusan qofnana dareemin Solo wuxuu la soo baxay qalabkiisa laysarka si uu siliga u jaro wuxuuna yidhi waa tiknoolajiyadii ugu dambeysay made in America laakiin Iliya wuxuu haystay maqas weyn oo uu ilbiriqsi ku jiray siligii markii ay gudaha galeen waxay arkeen albaab leh laba quful markan Solo ayaa farsamadiisa ku furay qufulkii Iliyana wuu caawiyey kadib markii ay shaybaadhka baadhiyeen waxaa soo galay ilaaliye waxayna ku khasbanaadeen inay gees ku dhuuntaan Iliya wuxuu arkay saacadda ilaalada wuxuuna mooday inay tahay tii aabihiis si aayar ayuu ugu soo dhawaaday oo wuxuu ninkii ku dhuftay jog soo xisay isagoo taagan laakiin markii dambe wuxuu ogaaday inaanay ahayn saacaddii aabihiis waxay heleen badhan qarsoon markii ay riixeen waxaa furmay waddo tagta khasnad gaara tuuganimada Solo ayaa ku fiicnaa sidaa darteed Iliya boorsada ayuu u hayay ilbiriqsiyo gudahood Solo ayaa furay khasnadii isagoo si kalsooni leh u leh khasnadan wax alarmiya ma lahan laakiin si lama filaana alarmigii ayaa qayliyey sidaa darteed daaqadda ayay ka boodeen waxayna galeen dooni dheeraysa si ay u baxsadaan laakiin inta aysan bixin albaabadii oo dhan waa la xidhay ciidamo hubaysan oo dooniyo wata ayaana soo eryaday markii Solo arkay in Iliya aanu baxsan karin biyaha ayuu isku tuuray kadibna si dhuumasho ayuu u soo baxay oo wuxuu fuulay gaadhi xamuula halkaas ayuu si raaxo leh u fadhiistay isagoo cunaya sandwich oo lahaa darawalkii gaadhiga isla markaasna
daawanaya ereyshada Ilya iyo ciidanka. Rasaas badan kadib doontii Ilya way qaraxday oo degtay. Ilaalada ayaana Ilya raadinayay, laakiin isla waqtigaas Saul ayaa gaadhigii xamuulka si toos ah u geliyay biyaha, wuxuuna ku riday doontii ilaalada. Kadibna biyaha ayuu quusay si uu u badbaadiyo Ilya oo haftay. Isla waqtigaas Alexander ayaa tagay khasnadii, wuxuuna wax walba u sheegay Victoria. Victoria qofkii ugu horreeyay ee ka shakisay wuxuu noqday Solo. Victoria waxay wacday hotelkii Solo, laakiin jawaab may helin. sidaa darteed waxay hubtay in Solo aanu joogin qolkiisa. markaas ayayna hotelka aaday. dhanka kale Solo iyo Ilya ayaa mooto si xawaare ah ugu waday hotelka. Gabi waxaa soo wacay adeerkeed Ruby oo raba inuu raaligelin ka bixiyo habdhaqankiisii xumaa ee uu kula kacay Ilya, laakiin Gabi been bay u sheegtay oo tidhi Ilya hadda u hurdaa ee subaxdii la hadal. Ruby wuxuu Gabi ku casuumay qada gaara berito, isagoo leh waxaan rabaa inaan arrin muhiima ka wada hadalno. markii taleefanka la dhigay, Gabi cid kale ayay wacday oo u sheegtay kulankii waa la xaqiijiyey. isla markaas adiguna waa inaad xaqiijiso inaad muuqaalka like saartay, channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirtay haddii aad nagu cusub tahay si ay muuqaalada dambe kuu soo gaadhaan. haddii aynu u soo noqono muuqaalkeena, markii Victoria ay hotelka gaadhay, Solo iyo Ilya dhanka dambe ayay ka soo galeen hotelka. markii Victoria ay soo dhaweynta ka soo qaadanaysa furihii qolka Solo, labadooduba qololkooda ayay galeen. wax yar kadib Victoria ayaa furtay qolka Solo, laakiinse waxay aragtay Solo oo musqusha ka soo baxaya oona shukmaan kaliya wata. sidaa darteed ilaaladeedii waxay ku tidhi iska baxa, albaabkana way xidhatay. dabaqa hoose Ilya ayaa ka walwalsanaa Solo, sidaa darteed qalabkiisa ayuu la soo baxay si uu u dhageysto wada hadalka qolka Solo, laakiinse wuxuu maqlay codad aysan qurux badnayn in la maqlo. kadibna Ilya wuxuu go'aansaday inuu iska damiyey isagoo leh waxaan u malaynayaa inuu wax walba xallin karo. maalintii xigtay, markii Gabi ay Ruby qadada u raacaysay, Ilya wuxuu dharkeeda ku dhex qariyay qalab raadraaca. wuxuu arkay in Gabi ay cabsanayso, wuxuuna ku dhiirigeliyay inay wax walba hagaagi doonaan. kadib Ruby wuxuu Gabi geeyey meel gaar ah. Ilya meel fog ayuu kala socday wax walba. halkaas Gabi waxaa la horgeeyay Alexander, laakiin markii ay Alexander la kulantay, Gabi gebi ahaanba way isbedeshay. Solo iyo Ilya ayay khiyaantay, waxayna sheegtay qorshaha oo dhan iyo sida ay u rabaan inay aabaheed ku helaan. waxayna tustay qalabkii raadraaca ee boodadeeda ku xidhnaa. waxayna tidhi ninka iska dhigaya inuu guursanayo waa jaajuus Ruusha, meel halkan u dhow ayuuna joogaa kaynta dhexdeeda. Ilya markii uu warkan maqlay wuu naxay, isla markiibana wuu cararay. isla waqtigaas Rudy ayaa dibadda u baxay si uu telefoon u diro. Solo isna wuxuu tagay xafiiska Victoria. Victoria waxay tidhi muddo yar gudahood ayaan kugu imaanayaa ee intaas cabitaan samayso. laakiin wax yar kadib Solo wuxuu ogaaday in cabitaanka wax lagu daray, sidaa darteed sariirta ayuu isku tuuray si aanu dhulka ugu dhicin markuu suuxo. markii uu miirsaday wuxuu arkay isaga oo kursi lagu xidhay. Victoriana waxay u sheegtay waxaan rabaa inaan si tartiiba kuu dilo, laakiin shaqo ayaan hayaa, sidaa darteed waxaan ku dhaafay Rudy. Rudy wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay jirdilka dadka. markii ay baxday Victoria, ninkii waalnaa ee Rudy ayaa bilaabay inuu ka sheekeeyo carruurnimadiisii xanuunka badnayd. wuxuu yidhi muuqaalkayga muu fiicnayn, runtii aadna waan u gaabnaa. kuwa adiga oo kale ah ee dheer ee quruxda badan way igu maadaysan jireen, laakiin xanuunkaas wuxuu iga dhigay mid ku raaxaysta jirdilka dadka. wuxuu sheegay inuu Hitler la shaqayn jiray oo maxaabiis badan jir dilay. dadkii uu dilay oo dhan buug ayuu sawirradooda ku ururiyey. bog maran ayuu diyaariyey oo Solo ku yidhi isdiyaari, halkan ayaan sawirkaaga ku dhejin doonaa. kadib Rudy wuxuu bilaabay inuu Solo koronto ku qabto, wuxuuna ku raaxaysanayay xanuunkiisa. nasiib wanaag Ilya oo raadraacaya Solo ayaa halkaas soo gaadhay. Solo wuxuu u malaynayay inuu iska saaray raadraacii oo dhan, laakiin Ilya ayaa mid kabaha u geliyey. hadda ciyaartii way rogantay, Rudy farxadiisuna way dhammaatay. ugaarsadihii ayaa ugaadh noqday. hadda wuxuu bilaabay inuu naftiisa u baryo, wuxuuna u sheegay wax walba in hubkii nukliyarka la sameeyey iyo in berrito Victoria lagu wareejin doono jasiirad gaara. waxay Rudy ku xidheen kursigii korontada. intii ay ka wada hadlayeen in la dilo iyo in la daayo, Rudy ayaa isku dayay inuu baxsado, wuxuuna si khalada u shiday mashiinkii. halkaasna isagii ayaa ku dhintay. dhanka kale Gabi 18 sano kadib ayay aabaheed la kulantay. Ilya iyo Solona waxay aadeen garoonka diyaaradaha. halkaasna waxaa loogu sheegay inay la shaqaynayaan taliye Ingiriis ah oo la yiraahdo Waverly. Solo waxaa lagu amray soo helsiinaysihan Udo iyo disigii cilmi baadhista, xitaa haddii ay noqoto inaad Ilya disho si aad taas u samayso ha ka waaban. dhanka kale Ilya amarkaas la mid ayaa la siiyey. hadda taliye Waverly ayaa sir shaaca ka qaaday. wuxuu sheegay in Gabi ay howlgalkan oo dhan u shaqaynaysay sirdoonka Ingiriiska. markii aabaheed la afduubtay wuxuu qortay Gabi. waxay raadinayeen fursad ay aabaheed ku gaadhaan. khiyaanadii ay Gabi samaysay waxay ahayd qorshe isaga ka yimid si loo helo kalsoonida cadowga. waxay siiyeen cadowga xog runa si Ilya uu helo waqti uu ku baxsado, waayo way ogaayeen in farantiga Ilya siiyey Gabi uu ku jiro qalab wax laga dhageysto. hadda ciidamada badda Ingiriiska waxay qabsanayaan jasiiradda. Solo iyo Ilyana shaqadoodu waa inay qabtaan hubka nukliyarka, soona badbaadiyaan Udo iyo Gabi. jasiiradda Udo wuxuu Gabi ka codsaday inay caawiso. Victoriana way ogolaatay. shaybaadhka dhexdiisa waxaa yaalay laba gantaal, mid iska caadiya iyo mid nukliyara. saynisyahanku wuxuu sheegay in labaduba isku xidhan yihiin. Gabi si ula kaca ayay saxan u riday si ay dareenka u jeediso.
raadiso uudana wuxuu helay fursad uu qayb ka mid ah gantaalka ku bedelo laakiin Victoria ayaa soo gashay oo tiri ha isku dayin wax khiyaano ah haddii aad rabto in gabadhaadu ay noolaato wax walbaana si sax ah u samee wayna ku khasabtay inuu qaybtaas dib u celiyo kadibna Gabby ayay kaxaysatay uudda shaqadii uu dhameeyay Victoria waxay ku khasabtay inuu siiyaa diskiga kombiyuutarka iyo backupka si ay u samaysan karaan hubka nuclearka intii ay doonaan umana baahan doonaan uudo waagii inta uusan baryin ciidamada badda Solo iyo Ilya ayaa soo gaadhay jasiiradda oo weerar bilaabay labada jaajuus shaybaadhka ayay gaadheen laakiin meydka uudo oo kaliya ayay heleen waxayna ogaadeen in hubkii hore loo sii qaaday Ilya wuxuu aaday inuu bamka raadiyo Solona wuxuu arkay ilaaliye xidhan saacadii aabaha Ilya markii Solo uu galay qolka kantaroolka wuxuu arkay Alexander oo hubka nuclearka iyo Gabby la baxsanaya Solo gaari off-road ayuu ku eriyaday Ilyana mooto ayuu ku soo dabagalay jid gaaban ayay mareen wayna ka hor yimaadeen Alexander ayaa Ilya mootada ku dhuftay Ilyana wuu dhacay markaas Solo ayaa gaariga Alexander ku dhuftay oo rogay kadib Alexander iyo Solo ayaa dagaalamay laakiin dagaalkaas ma dheeraan sababtoo ah Ilya ayaa helay fursad oo dilay Alexander Ilyana ma ogaanin in Solo uu dagaalka dhexdiisa ku xaday diskiga kadib markii ciidanku gantaalkii hubiyeen waxay ogaadeen inuu yahay gantaal caadi ah oo la khiyaamay waxaa la ogaaday in subaxdaas 100 doonyood oo kalluumaysi ay jasiiradda ka baxeen hubkuna midkood saaran yahay laakiin Solo wuxuu xasuustay magac uu ku arkay xafiiska Victoria waa magaca doonida aabaheed liiska markii laga dhex eegay doonidii waa laga helay Solo ayaana raadiyaha kala xiriiray kabtankii doonida kabtankii wuu inkiray laakiin Solo ayaa Victoria ku jeesjeesay isagoo leh ninkaagii waan dilnay wuxuu ahaa nin liita xitaa 20 ilbiriqsi lamuusan dagaalamin hadalkaas Victoria way u adkaysan weyday raadiyaha ayay soo gashay oo tiri qoyskaaga oo dhan ayaan hal sano gudahood ku leynayaa tani waxay ahayd qorshe Solo uu degay wuxuu rabay inuu cabaar la hadlo si ciidamada baddu ay u raadraacaan halka ay ku sugan tahay kadib wuxuu u sheegay qoyskayga ma leyn kartid sababtoo ah adiga ayaa hadda dhimanaya gantaal ayaa doonidaada lagu soo riday shaqaalihii ayaana badda isku guray markii Victoria cirka eegtay gantaalkii ayaa ku dhacay doonidiina way qaraxday iyada iyo hubkii nuclearka ahaa maadaama aanu hubka active ahayn qarax nuclear ma dhicin subaxdii xigtay hotelka Gabby ayaa Ilya ka raali gelisay inay qorshaha ka qarisay Ilyana wuxuu yiri waan fahmi karaa Gabby waxay u celisay farantigii laakiin Ilya wuxuu ku yiri xasuus ahaan u hayso markii ay isdhunkan radeena telefoon ayaa u soo dhacay Ilya waxaana loo sheegay in diskigii uu soo lahayo waana inuu dilo oo ka soo qaado Ilya muusan rabin inuu dilo sababtoo ah naftiisa ayuu badbaadiyay saaxiibna wuu u arkay markii uu qolka soo galay Solo alaabtiisa ayuu xirxiranayay Ilyana wuxuu arkay diskiga dharka ku dhex jira Solona wuxuu fahmay dareenka Ilya si lama filaana Solo ayaa Ilya wax u soo tuuray waa saacadii aabihiis ee Ilya jeclaa Ilya wuxuu yiri ma ogtahay hawlgalkayga Solona wuxuu yiri haa waan ogahay waa mid la mid ah kayga kadib waxaan arkaynaa labadooda oo cabitaan wada cabaya miiskana wax ayaa ku gubanaya waana harddiskigii hadda mar haddii dhiski jirin cadow ma helayo iyaguna isma dilayaan Wolverine ayaa u yimid oo u sheegay hawlgalka xiga labadiinaba waan idin baahanahay waxaana sameynaya koox gaar ah oo ka kooban jaajuusiin wadamo kala duwana shaqadooduna waa hawlgallada khatarta ah nasiib xumo filimkan qaybtiisa labaad weligeed ma soo bixin haddii uu ku cajabiyo muuqaalkuna like saar channelkana subscribe dhe oo nagu soo bir haddii aad nagu cusub tahay halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan oo ku cajabin doona waxaana inoo balano muuqaalkan xiga sidaas iyo nabadgelyo